wanaagsan nabad daawadayaal idin ahaantiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii hal abuurada gobolka Gabiley si oo ah mid aan ugu talagalnay dhammaan dhalinyarada muddadan ugu dambeysay ku soo badanaya gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Arabsiyo barnaamijkan oo ay maalinta martii noogu yihiin Muxiidiin Maxamed Aadan iyo Xasan Cabdi Ibraahim bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhaw Muxiidiin barnaamijkeena hal abuurada gobolka waan ku dhawahay walaashay waan u salaamay adiga iyo haweeneyda barnaamijka aad Muxiidiin Masiix Xasan Cabdi Ibraahim sanad jacayl ku soo dhawaad la sida aad u dhawahay waa maasantahay adiguna aan u guda gal Muxiidiin Maxamed Aadan Muxiidiin taariikh nololeedkaagii halka soo bilowday sababtii ugu kaliftay inaad abwaan noqoto waxa soo dhan daawadayaasha oo Muxiidiin cidii yahay ka dhaadhigay suugaantayda ma sii qoto dheer laakiin suugaanta aan wada waa suugaan inta socota ما شاء الله Muxiidiin aniga isu socda su'aalahaaga maanta waxaad noogu tala gashay inaad barnaamijka inoogu furto maansooyin ayaan halkan kugu hayaa maansadu waxa la yiraahdaa geesiyo jacayl dhaba sida tan bay ku bilaabmaysaa maansadu gantaalaha jacaylka gubaya naftaydan ku gadaama leeyahay anigoo gudaha dhigay goobtii dagaalkan ka gilgilay isleeyahay gumuciyo rasaastii gaashaanku ima dhibo geeriduna ka sii daran guuxaagu igu xidhan aduun baan ku goobaa gidi maalin oo idil iyo goor habeenaba gadayna abiibow waxaad gorfaysaa gama iyo hurdaba nacay fartaaga iyo maad geesiyo jacayl dhaba ku gadaama maansada geeriyo galool baxay gaba iyo hanaankii geeyasha ximnaanteed garowcaana lagu daray subagiina garabyaal aniguba guyaalbaan ku soo goobayay garo geesigaan jeclaayo gunya raadinteedaba aduun baa gobtayda tala waxaan ku goyn lahaa inaan noqono garab qura iyo guri wadaag gacal geeri uun ku kala taga anihii geeri uun baa ina kala qaadi kartaa bay ku tiree ha ismoodin inaad adiga uun dhankaaga wax ka raadinaysay aniguba waan ku raadinay afartaaga iyo maadh geesiyo jacayl dhaba ku gadaama maansada geeri iyo galool baxay gaba iyo hanaankii geeyasha ximnaanteed garowcaana lagu daray subagiina garabyaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maansadaasi halkaasay inoogu egtahay من أبوان حسن لا جعل وواحد كيدلها فنك مهمة تقولين حاكو كده اللي إنك أبوان من هالأبور نقطة may fankiyo waqti dow ma lihi laakiin fanku waxa marka horta anigu waan wax sameeyaa ama wax tiriyo waa laba jeer marka aan wax jeclaado ama marka kale xanaaq laba jeer ma wax tiriyaaba waxaan ka sugna mas'uul loo kala gashanaa bilowga barnaamij maasadana maanta idii waxa la xiriirsamo oo maasa ka hadlaysa magaaladan Arabsiyan ku dhaqanahay mar haddaan hayda qof reer Arabsiyooda bal horta waxa sida magaaladaadii iyo dadkii joogay iyo bal hablihii magaaladii iyo barbaartii bal wax ka dheh marka maasan xiriirsamo leedaa waxa magac u bixiyay nin injineer Cali leedaado oo saxibanaaya magac u bixiyay waxaad kiciyo xanteeyo laabaha hablaha xiriirtiyo wararcaan u eege xaruntii dalxiiskiyo xiriirsamo ku noolow xilli roobku nagi yahay oon lahayn xagaa iyo dabeelkii wanaagta ah haadiya dareemada beeraha intuu xidhay xarfadii tigaadii gobolada ku heerno mihigaan xalay daay iyo may xafiifii qiimaayo weliyo oo xawli dooxi ku socda xawaaraha xaas iyo gashaantimo dalin soo xaraga baxay daawashada ku xoomeen ما شاء الله magaalada Arabsiyana ama ku goosaysa magaca ku raaca magacna la isku jecel magacan waxa lagu bixiyaa ma sababtii lagu bixiyaa magacan indha jaxay magacan iyo dadku ma haysidii indhahan qaadirada ah ee cascas jacayl buu soo jeedin malisay markaas ma lagu bixiyaan yeelata waxan ما شاء الله جيست كلا كان شلة عن هيدين مرة بعد ما شاء الله هي ما صدق حتى كل بشوينتو ما بعنا هذا البدن واحد يكسر قبل ما يسوي حكوا هاي ما صوب من اللي على هذا ما صدق كل قلنا كسر maasadan milil cali dhaahdo waxaan sameeyay waqti aan ku sugnaato waxa Arabsiyood aniga iyo inamaan saaxiibanahay maasada mililaco ay ku bilaabmaysaa sida tan maaxdii xareedii u bixiyay man koo baxay toxumuunad wacan yahay dayuxuna muraadii intuu nuurka soo maray dhanka bari midga xadhigay xidigohuna muuqdaan kala midab leeyahan durduqiina marayo dhirta iyo mareerkii midhihii gondaha dhigay waa dhiina dheerto indhuhuna mililico miisaanka raacsheen oo midigtu garab tahay bidixduna mataanteed مسألة هالكاسو نفط مالين شوكتا مية موسديسا أما مهاشة رفتا ما شاء الله أدي أكون متسوي أبوان حيدين إن داوديال هنجا حاجسين كان دين ونا برنامجك إنكو برنامجك هالأبور كقبل كجيب لك جاره عندك مدى عربية كوكو دي تشيلو
حسن عبدي هل كان يحكوا هنا أنا صوت حلو كل قفل بحر وكرحلة وياش هاد كرح شادو horta maasadan dhaxal waxa weeyaan waa maasad xal dhaqankii hore Soomaalidu lahayd iyo dhaqankan inta soo galay marka maasad dhaxal wax asaas lagu bixiyay waxaan leenahay dhaqankeenii hore inaa weesha ka dhaxaniin ka timi ka magaca asaas oo la baxay maasad halkaas waa maasad sadabaaye ka sameeyay marka bal maasadan eegno iyadoo dhexdeeda iska fasili doonto sida ay leedahay isay wax u jiraan dhaqankii adka dhaxal iyo awow way soo dhisnaa hadda waa digteen daldalaalka Yurub dhisi iyo surwaal ayaad dheehateen hadba dhiiqa mari dhabanada casee lafahooda shiyo ilaa dhuuxa gaar hadba dhoohanay qurux loo dhashay dheeman iyo lacag kaaga dhuranayaan dadkan horta reeruku midabkan cadaanka ay timan Ilaahay ba siiyay inagana dadkeeni waxa moodayaan hadii shaamboo iyo cream la isku waalo in midabkan cadaanka la helay moogta hadba dhoohanay qurux loo dhashay dheeman iyo lacag kaaga dhuranayaan sida dhuuriyada dhukashada macaan leefta dhariyada dhaqamada kale ugu dhagan tahay hadda waa dandhamo dhereg lama hayee bal is dhowro oo dhulka ayirto ما شاء الله حيتان حسرة بحتري حسرة نوحة هكذا كل صومالية اللي تردار مسك مركز بربر بيتحدق في حريتها محا فقري ولا حسرة فقري ولا حوين dhaqankii hore wuxuu ahaa hablo qurux badan oo midab qurux imkana laba kala rad bulshada inaan inta horena cas inta kalena mudug marka hadda dhibaatada way waa labadaas mid imka waa dhibto taala wax way waa labada kala ruweey أبي أدون هاتسين هاي حسن إن حيثنا سن مقلنا حسن بين ما قدر محا هرت أولي مرتبي كوها دليل مركا محمد نيا كبرنا كارك دخل كذا سلمة horta hooday waxa weey marka dhaqankeena la eego dhaqankeena waqtigii hore sidoo ahaa imika sidii yahay isku ma badawaba imika waxa dhalan rogniba dhaqankeena haddaan sidaa laga noqonina dhaqankeena uu sii gabaabsiya أبي أدود ما صنت هاي ونذا ذي لها نوافع أول حيتين محمد هذين إنه كترنا أنت كبدي برنامج كنا إن وحيت حد لو صح إن halkan waxaan idinku hayaa maaso ay raahdo qaran iyo qabiil wasqaban kara maasadan waa silsilad qaali la raahdo oo aan bilownay aniga asxaabtu maansay qurxoonay marna qurunka tooxay musqabiil ku dooday marna qaranka dumiyay qodobada ka saaray afka qaabilkiisay aan qulquliya gabayga iga qabo maruunkoda Allah yow qabiiliyo qaran joogan oo dumin ma isqaban karayaan qaran baa qabiil baday inay qolo ku faanaan iyo qoys maroorsiga qarano maxaa tahay qabiilow si qaabkee qolo lagu cadeeyaa qaaf loogu beega qaadirkiina uuma ku qayaxay quraanko ku cadeeyay qowlkii inuu yahay qabiilkuba u dhaqarashana sabab Ilaahay wuxuu yiri isku garta un taarifu baa leeyahay qabiilka isku garta un baa leeyahay qabiilka lama oranin qabiilka ku dhaqma oo qobnida dadkayga kala qaaday qaanso igu noqotay qiiro qalbigayga gubaysahe wax ka qabo qurbaan yahow qablaha ku faana ama qurunka tooxa ama qaranka been baday ama qoyska raran baday maasadu maqiira maqarqoor duldulanba maqaadaada hadalka misawaha ku dhaadii iyo qoorjabkaagii ما شاء الله إن أول حيتين قبيل كذا تصيحوا قربها بشيء قرن من يسبر بالكنيس هرت قبيل كبضة واحد أول نبي كقيل هو قبيل ما حد شيء إن وحنا نقولها قبيلكم ورت قبيل كل رقم منه لكن سكرت ولكن حدود قبيلة قرن كيتو قرن قبيلة تروح قرن كي قاعد سودان ما حد كورن هاي إني ورت فكر كيسان كل أحسنها في مر هذول صاحبين كهذلي قبيلة دي أنا قلنا واحد خير هاللي لا حاجة تعال وايو لما خلا مرة من وقت قبيل هو واحد كيني هو تعال كيني يا ترى تعال كيني مرة هاي استمر على هذا تعال كم الله قبيل ما قال قرنية قبيلة بلا هذا كاو حلال هذه قلدا درنتي قدادو هذي وحديدو نفتادو نقادن ويدو هذيقون يقن عينين قلبي هذيقون يقوينين وين هذا اللي بشك كيما قولك يقعد كيغا هذون عاشق قوبينين قووش نفتيدا قال إن كنبا فكاله هستي غوريسي waxaan sameeyo ayaan wada xasuus waqti badan ay ka soo wareegtay ayaan bal dul maraya
markaa heestan waxaa la dhahaa jacayl arag baan lahaa baa la dhaha maanta waxaa la jacayl arag maase waxaa la dhahaa jacayl arag baan lahaa jidkani raac baan lahaa jawaabtaan sugayay iyo jannada gaadh baan lahaa jinniyadda jirkaaga qalbigayga joogto jeegaan sideeda la ii jiidanayaa jawaabtii indhahay jacaylkii qalbigaay jannadii naftaydaay soo jiibsan waaye had maad ila jiboonood dhinacayga joogsan jacaylkii dawlad madax bannaan buu maanta ka dhigay xasanoo qaran iyo qabiil baad ka soo saartay markaa taasaa waxyaabihii jacaylka iga soo mareen aniga hordhac kaaga qaatay kuwaas waxay haayeen qaar ka mid ah hal abuurada gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Arabsiyo Muxiidiin Maxamed Aadan iyo xasan cabdi ibraahim aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa inaan marna ilaaween barnaamijka quruxda badan leh cidii soo habaysay ka dambeysay oo ay ka mid yihiin Khalid Cismaan Khalid Ilkacase sidoo kale kameramaankeena أحمد محمد نور isagana sidoo kale waxaynaan marnaba ilaaween oo aad iyo aad u salaamayna Xamse waxaan inta ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena hal abuurada gobolka Gabiley oo aan maanta gaar ahaan ku sugnayn degmada Arabsiya inta barnaamijka xigo ku kulmi doono sida ayaamaana heedin barnaamijkeena waa gabagabayaad halkan uga faa'iideysanaysaa salaamo diraysa horta dhammaan familkayga ayaan u dirayaa hooyaday aabahay iyo intii la halmasho anigu aan kala qaadqaadayn asxaabtayda iyo cid kasta oo magacayga iyo muuqayga taqaan sidoo kale xasan cabdi ibraahim adiguna yaa salaamaysa ilaa jacaylka xiisa yani horta waad maasan tahay horta adiga ku salaamay lambar laba asxaabta meesha ugu la sugan iyo inta soo qaban qaabisay marka saddexaad waxa salaamay oo jacaylkayga soo socdo salaam intaas ay aad iyo aad baan u salaaminaa jacaylkiisa soo socda xasan